madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaaraha xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali khayre madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka madaxweyne ku-xigeenka galmudug iyo guddoomiyaha baarlamaanka galmudug golayaasha dowladda heer federaal iyo heer state bulshada rayidka ah dhammaan marti sharafta kale halka joogta dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii waxay tahay caawa habeen farxada waa habeen taariikhiya waxaa ilaahay mahadiisa inaan maanta magaalada dhuusamareeb aan habeennimo ku shirayno oo nabad ku shirayno oo qurux iyo wanaag badan oo ka muuqata aan caawa halka markhaati ka nahay annagoo og maalmo badan oo lasoo dhaafay dalkeena siduu u ekaa khaasatan magaaladan si ahaan jirtay waan uga mahad celinayaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo dadka reer galmudug dhammaantood aad baan uga mahad celinayaa soo dhoweynta iyo sida diiran inala soo dhoweey waxaan sidoo kale marka ugu horreeya jeclahay inaan u mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha oo runtii shirka wajigiisii labaad nagala soo qayb galay si kalsami ah oo niyad sami ah muujiyey muddadii hadda dhowrka cashahayd aan wada joognana runtii wax badan oo muddo taagtaagnaa noo sahashay in aan ka gudubno arrintaas waan uga mahad celinayaa xaqiiqda warkii baryahan aan nalaga sugayey waxaa akhriyey laga akhriyey halka nuxurkiisuna waxaan filayaa dadka xooggiisuna ay la baxeen maanta waa maalin taariikhiya muddo waxaa taagnaa dabcan inkastoo dadku aad ii wada fiirinaya laakiin waa iska kafta badna waa kaftamaynayo kala taagnaan badan baa muddo jirtay madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ah waxay noqotay guura raac iyo carruur baa loo kala sheekeeyaayo markii la wada fadhiistay wax badan baa runtii meesha ka baxay waxaan aada ugu faraxsanahay runtii kulamadii fiicnaa oo dhacay iyo sida wanaagsan oo niyad samida leh ee loo wada dareersanaa in marxaladdan dalka meesha uu marayo loo baahan yahay midnimo qaran iyo in lagu wajaho xaaladaha dhabta ee jiro si aragti midaysan ah doodo dheer kadib arrintaas runtii waxaan uga mahad celinayaa madaxweynaha dowladda federaalka oo runtii muujiyey dulqaad iyo odaynimo runtiina gogashaan maanta la fadhiyo wanaaggeeda la dhihi karo isagaa iska leh saan ogsoonnahay dhammaanteenba halka looma kala harin waxaan iyagana jeclahay si gaar inaan ugu mahad celiyo xildhibaanada iyo aqalka sare xubnaha ka jooga oo runtii aan tiro aad u fara badan ay halka joogto 100 kor u dhaaftay xildhibaanada aqalka hoose kaliya waxay iyadana muujinaysaa inay iyagana diyaar noola ahaayeen waxa aan rabno inaan ka shaqeyno inay gacan nagu siiyaan ruuxadooda dadka wax naga dhexdhexayaan bay ahaayeen xildhibaanada iyo isteedyada xoogaha waxbaa ka dhexeeyaa la oran jiray laakiin waxaan rabaa inaan u caddayno inaan annaga diyaar u nahay inaan la shaqayno kursigu waa iska macaan yahay oo hadday rabaan inay sii joogaan oo mar labaad la soo doorto xataa waa kala shaqaynayna haddii ilaahay
laakiin waxaan rajaynaynaa inay doorashada ka baqin oo mararka qaarkood xildhibaan baan ahaan jiro doorashada waa laga baqaa marka waxaan rabaa inaan nidhaahno madaxda anoo afkooda ku hadlaya ragga waa soo wada dhaweynaynaa haddii ilaahayno dhibaato ma jirto xaqiiqda in doorasho la galo dalkeenna dantiisaa ku jirta dalkeenna horumarkiisaa ku jira is-aamin baa ku jira galmudug haddaysan doorasho ka dhici lahayn dhowr bilood ka hor quruxda maanta leedahay maysan yeelatay inay doorasho dhacdo waxay daliil u tahay in caqabad taagneed laga gudbo marka waxaan rajaynayaa inuu dadka doorashada uusan ka baqin waxaase muhiim ah tallaabo kastoo la qaadayo in wadar ogol ahaato la isla ogol yahay waxa hadda aan halka ku gaarno waa hordhac iyo tilmaan laakiin u baahan turxaan bixin iyo cid kasta oo iyada ruuxaddooda ra'yi haysa in la siiyo waqti iyo space ay ra'yigeeda ku darsato oo aan rajaynayno inay wax badan oo qurux badan ay ku soo kordhiyaan madaxweynaha ruuxaddiisa waxaan rajaynaynaa inuu kursiga noo sii joogo tartan fiican uu galo annaguna hareeraha qabanno marka insha allah dhib badan ma jiro ragga naga maqan oo xoogaa cabsida ku jirsanayana waxaan rajaynaynaa inaan garab fiican siino aad baa u mahadsantihiin haddii aan madaxweyne qoorqoor hadalladii uusan jeclayn aan uga dheeldheelana isagaa goga shufisado iska dulqaata raalli ha ahaado waa mahadsantihiin